بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسو دوادا برنامج قصوين كنولشا oo in ka daawano qisooyin ku saabsan nolosha iyo waxyaalo badan oo u baahan inaan ku cibro qaadano dawada qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay arrin aad u cajiib ah waxa dhacay nin dhalinyaro ah wuxuu ku noolaa waddanada reer galbeedka mid ka mid ah markaas waxa uu damcay gabadh reer galbeed oo gaalad ah inuu guri ka karaysto gabadhii markuu yiri gurigayga kiree ayaa waxay ku tiri ma muslim baa tahay markaasuu yiri haa muslim baana sidii kaa kireen maayo markaasaa kuri sababtu maxay tahay markaasaa sababtu waxay tahay bay tiri gurigaygan waxa deganaa niman carab ah oo muslimiina ayaa deganaa markii ay gaadhay waqtigii ay lacagta bixin lahaayeen ayay lacagtii la baxsadeen dibna igumay soo celin lacagtii marka ma raba anigu inaan ka kireeyo maadaama tahay muslim aad tahay carab inaad tahay ka kireen maayo wuxuu arrintaasi markii ay dhacday buu yiri ayaa waxaan go'aansaday gabadhaas gaalada ah xumaanta ay ku sheegayso islaamka iyo muslimiinta inaan maskaxdeeda kama saxo si aan taa u sameeyo waxaan ku yiri gurigayga kiree wax kasana diyaar baan ah lacagta rabtana waa ka kireysanaya markaan ku celceliyay aad u bariyay muddo kadib iga aqbashay markay iga aqbashay gurigeena iga kireyso ayaan gurigii galay markaan gurigii galayba waxaan isku dayay inaan dhaqankii islaamka ahaa saxda ah ku dhaqmaano oo gabadhu ay aragto dhaqanka saxda ah ee islaamku u dhigayo waxaan bilaabay inaan caawiyo inaan akhlaaqda islaamka tusiyo inaan wanaag u sameeyo inay aniga iga aragto dhaqan wanaagsan marka qaarna waxaan u sheegay markay i weydiiso waxaas maxay yihiin waxaan ku oranayay dhaqanka wanaagsan islaamkana baray dhaqanka akhlaaqiga fiican islaamka ay sidaa sameeya diintayda ayaa arinta igu amartay oo ay sheegtay kalimaadkaasan isticmaali jiray markay wax iga weydiiso qaabkan u dhaqmaayo wixii markii soo dhawaatay bixitaanka aan guriga ka baxay ee aan ka tagay meesha ayaa markaan alaabteedii waxay iga soo urursaday si aan guriga uga baxaba maadaama waqtigeyga dhamaaday ka baxay ayay ii timi markay ii timi wabi ooyisa waan yaabay iyadoo ooyisa waxay igu tiri inaan kaygiyo waxa kugula dardaarmaya inaad diinta aad haysato aad ku fara adeegto diintaada imika aad haysato inaad ku fara adeegto ayaan kugula dardaarmaya dawada qisada maxay tilmaamaysaa qisada waxa ay tilmaamaysaa islaamka waxa uu ugu qaban karnaa dhaqankeena waxaynu ka bedelno marka soo dhaqan wanaagsan laga arko macnaheedu waxa weeyaan message-ka u gudbinayso qofka kale wuxuu noqonayaa message qofka wax ka bedela ninkaasi dhaqankii wanaagsanaa uu la yimi gabadha gaalada ah maskaxdeedu wax bay ka bedeshay oo markii hore waxay aaminsaneed inuu islaamku aanu fiicnayn laakiin maanta maxay aaminsan tahay inuu islaamku yahay diinta ugu fiican ee akhlaaqda wanaagsan wata ee maanta aaminsanta intaas ku soo koobana qisadeena maanta aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh